بسم الله waa maxay sababta ay sanad kasta mar ama dhowr mar ay deegaan boobayaasha Yahuudu ama ciidamada ammaanka Israa'iil ay u sameeyaan daandaansi sida Masjidul Aqsa oo xoog lagu galo Falastiiniyiin la dilo ama la xiro guryo ama tuulooyin xoog lagu dego kadibna markii ay Falastiiniyiintu mudaharaadaan ay ciidamada difaaca Israa'iil u soo kacaan ay xoog ugu adeegsadaan Falastiiniyiinta shacabka ah kadibna ay dhibaateeyaan kadib markii ay ururada iska caabintu ka falceliyaan arrintaas ay Israa'iil weerar ugu qaaday Gaza oo ay duqeyn ugu bilowdaa waa maxay sabab arrintaas oo soo laalaabatay caadina iska noqotay lana dhihi karo ma jirto sanad aysan dhicin arrintaas oo kale haddaba si aan u ogaano sababta waa in aan ogaanaa waa maxay Israa'iil waa nidaam ku salaysan fikradaha loo yaqaano sahyuuniyadda taas oo ah in dadka Yahuudda ah ay yeeshaan dhul ay ayagu leeyihiin oo ay isku aruursadaan ayna dawlad ka samaystaan nasiib daro dhulkaasi waxa uu noqday Falastiin Israa'iil si ay dhulkaas u hantiso oo ay u degto waxa ay u gashay dagaallo aad u fara badan waxa ay u barakicisay magaalooyin waxa ay u xasuuqday kumanaan waxa ay qaxooti ka dhigtay dhowr milyan waxa ay u xirxirtay kumanaan qof bilaa maxkamad waxa ay asasiinaysay boqolaal qof oo muhiim ah Israa'iil waxa ay rabtaa in ay qaadato dhulkaas Falastiin oo aan taako ka dhimanayn intaas oo kaliya ma aha Israa'iil waxa ay doonaysaa oo ay sheeganaysaa dhul kale oo ka baxsan Falastiin oo maanta ka tirsan wadamo kale haddaba Israa'iil way ka go'an tahay in ay qaadato dhulkaas ay sheeganayso oo aan taako ka dhimanayn waxa ay rabtaa ku qaadato laakiin uma fududa Israa'iil in ay dhulkaas qaadato ama la wareegto hal maalin adduunka oo arkaya sidaas darteed waxa ay rabtaa in ay maalinba guri qaadato maalinba xaafad la wareegto maalinba magaalo laakiin cidda kaliya ee dhihi karta maya waxa weeye waa ururada iska caabinta Falastiiniyiinta sidaas darteed haddii aan u laabanno su'aashii hore ee ahayd Israa'iil maxay sanad kasta Gaza u duqaysaa jawaabtu waa in ay dhinto awoodda ururada iska caabinta Israa'iil way og tahay cidda kaliya ee maanta ka hortaagan dhulkaas inay qabsadaan inay yihiin ururada muqaawamada sidaas darteed sanad kasta waa in ay samaysaa daadaansi si ururadaas ay ula socoto awooddooda heerka ay marayso una dhinto ugu yaraan Israa'iil ma rabto in ururadaas ay xoogaystaan mana aysan rabin in ay xataa soo gaaraan heerka ay maanta marayaan laakiin hadda waxay ku qasban tahay in ay sanad kasta duqayso si aysan awooddooda u korin sidoo kale Israa'iil ma doonayso in Falastiiniyiintu ay soo koraan dhaqaale ahaan oo ay yeeshaan kaabayaal dhaqaale sidaas darteed ayaad arkaysaa inay duqaynayaan shirkadaha waaweyn bangiyada iskuulada isbitaalada masaajida goobaha ganacsiga isgaarsiinta iyo weliba xataa idaacadaha si ay uga dhigto meesha meel aan lagu noolaa karin waxaa hore loo ogyahay in Gaza ay dhinac walba ka go'doonsan tahay badda cirka dhulka sidaas oo ay tahay Falastiiniyiintu weli way dhaqdhaqaaqayaan waynu nuuxsanayaan Israa'iil waxay doonaysaa in dhulkaas ay ka dhigto meel aan lagu noolaa karin si Falastiiniyiintu ay uga niyad jabaan ama ay uga guuraan meeshaas si ay dhulkaas u qabsato duqeymaha noocan ah ee la duqeeyo Gaza sanad walba waa wax la malay karo inay dhici doonaan sanadaha soo socda inta ay jiraan ururada muqaawamada Israa'iilna ay joogto maxaa yeelay Israa'iil uma dulqaadan karto in cid ka hor istaagto dhulkaas inay qabsato Falastiiniyiintuna uma dulqaadan karaan inta ay nool yihiin in dhulkaas la iska qabsado sidaas darteed waa la fili karaa in ay dhacaan weerarada noocan oo kale ah sanad walba mar ama dhowr mar